Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada qaybta labaad cashirkii shalay aan bilaabay oo ku saabsanaa kala goosi xanuunka ama waxa loo yaqaan arthritis. Haddii aad isku aragtay in jilbaha, sinaha, dhabarka, qoorta ama garabahaba ay ku xanuunayaan, haddii jilbaha ay ku shanqarayaan ama aadan laabi karin oo sujuudda ay ku dhibayso, haddii qoorta ay ku togtogan tahay oo marka aad jeejeysanaysid shanqar ka dareemaysid, hadduu dhabarka ku xanuunayo oo foorarsiga aadan awoodin, hadduu xanuunka kuugu daran yahay markaa subaxii soo toostid oo aad nafisaysid markay qoraxda soo kululaato ama xoogaa aad socsocotid, hadduu xanuunka kaa yaraanayo markaa biyo qandac ah ku qubaysatid ama isku qubaysid ama lagu riixriixo ama lagu masaajeeyo, casharkan adigoo kugu socdaa. Xanuunkaas waxaa loo yaqaanaa osteoarthritis, waxayna Soomaalida qaar u taqaanaa riix, qolo kalena waxay u taqaanaa tuf. Xanuunkaas ayaan insha Allah maanta ka hadlaynaa. Magacayga waa Dr. Mahdi, waxaa ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Osteoarthritis waa nooca ugu badan xanuunada loo yaqaan arthritis-ka. Xanuunkan badanaa wuxuu ku dhacaa kala goosyada, kaasoo ka dhameeya dareeraha, kadibna carjawda lafaha kala ilaalisa ayuu baabi'iyaa, kadibna lafihii ayaa isgaarayo, inay isxoqaan ayay bilaabayaan, kadibna lafihii way isku reysanayaan ama fiiq ayay yeelanayaan. Qofkan hadhow tima laabi karo kamana soco karo. Xanuunkan boqolkiiba 50 fir ama dhaxal ayuu ku yimaadaa. Astaamihiisa keliya ayaa la xalin karaa, ma ahan xanuun laga bogsan karo. Hadafka daaweynta riixa ama tufta waa inuun xanuunka la xakameeyo, lagana hortago inuu dhib horle uu yimaado. Calaamadaha xanuunkan aad ku fahmi kartid waa xanuun la dareemo markii aad kala gooyska dhaqaajinaysid ama markaad dhaqaajisid kadib, in kala gooyska uu sidii la rabay uusan u dhaqaaqaynin oo meesha loogu talagalay uusan gaaraynin, inuu ku danqanayo markaa gacanta ku riixdid, inuu shanqar sameynayo ama qababaclaynayo ama qurtutublaynayo. Xanuunkan badanaa wuxuu ku badan yahay dadka waayeelada iyo wixii da-doodu ay 50 sano ka weyn tahay, laakiin dhalinyarada xataa wuu ku dhici karaa. Wuxuu aad ugu badan yahay dumarka markii loo fiiriyo ragga. Sidoo kale xanuunkan wuxuu aad ugu badan yahay dadka cayilan, maadaama cayilku uu badanaa culays saarayo kala goosyada uu xanuunkan asiibo sida jilbaha iyo sinaha oo kale. Sidoo kale xanuunkan wuxuu ku badan yahay dadka kala goosyada uu dhaawac hadda ka hor ka gaaray, xataa hadduu dhaawacaas uu kasoo wareegatay muddo dheer oo sanooyin ah, xanuunkan weli waa u nugushahay, taasoo loo yaqaano secondary osteoarthritis. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa kuftin jilib iyo habaar waalid si sahlan kuma tagaan. Taasi waa arrin jirta. Jilbahoo kale haddii wax ka gaaraan, inaad ka raysatid waqti ayay qaataan. Xanuunkan haddii aan la daaweynin wuxuu keeni karaa inuu kala gooyskaas shaqada uu howlgabo oo aadan isticmaali karin, oo aadan laabi karin, oo aadan fidin karin. Haddii aad maqashay ama aad aragtay dadka la yiraahdo jilbaha laga bedelaa ama sinaha laga bedelaa, waa dadka xanuunkan uu ku raagay oo gaaray heer aan waxba laga qaban karin, oo jilibkii iyo sintii uu baabi'iyey, kaas u baahan in laga bedelo. Sidoo kale haddii aad aragtay dadka kuraasta ku dukada oo sujuudda ay dhibayso iyo jilibka inay laabaan, iyagana xanuunkan ayay la nool yihiin. Marka xanuunkan sidee loo baaraa? Arrintan waa muhiim. Xanuunkan ma lahan baaritaan dhiig ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo in xanuunkan qof uu qabo. Waan ku soo celinaa mar labaad. Ma jiro baaritaan shaybaar oo dhiig ah oo xanuunkan loogu talagalay in lagu ogaado inaad qabtid. Baaritaanada dhiigga ee la sameeyay xanuunkan marka dhakhtarka ka shakiyo waa in xanuuno kale uun keliya looga shaki baxo iyo in la ogaado xanuunkan heerka uu marayo. Laakiin xanuunkan inaad qabtid inaadan qabin waxa kaliya lagu ogaan karo waxaa waaye waa waraysi, weysiteyn iyo sawir in lagu saaro. Sawirkaasoo noqon kara raajo. Raajada waxay sheegtaa lafaha dhibka gaaray, hadday lafaha is cunayaan, haddii lafihii ay xoqmeen, hadday fiiq yeesheen, hadday isku soo dhawaadeen. Sidoo kale waxaa qofka la saaraa MRI scan, kaasoo isagana ka warbixinayo carjawda iyo seedaha. Xanuunkan marka sidee loo daaweeyaa? Xanuunkan daawadiisa saan hor usoo sheegaba waa kaalmati iyo ka hortag ayuu leeyahay. Kaniiniyaal loo qaata ayaa jiro kuwaasoo hadafkoodu uu yahay in xanuunka lagu baabi'iyo, in bararka lagu dejiyo. Hadduu dhabarka uu kaa saameeyey oo culays neerfaha kaa saaray, in daawooyinka neerfaha ay ka caawiyaan. Kala gooyskoo kale mararka qaar waxaa laga yaabaa kaniiniga inuu wax kaa tari waayo, u baahdo in cirbad lagu duro, cirbadaasoo xanuunka ka yareynaysa. Sidoo kale qofka waxaa loo sameeyaa jimicsi iyo physiotherapy. Sidoo kale hadduu kala gooyska ama dhabarka uu gaarsiiyo dhaawac kaasoo qallooc gelin kara, qofka waxaa loo xiraa waxyaabo dhabarka toosiya ama jilbaha u diida inay dhaqdhaqaaq sameeyaan. Haddii waxyaabahaas oo dhan xal ay keeni waayaan, qofka qalliin ayaa loo sameeyaa. Halkaas ayaan kusoo koobayaa cashirkeena ku saabsanaa riixa ama tufta. Fadlan haddii su'aalo aad qabtid, qaybta commentiska ee muuqaalkan kusoo hoos qor. Waana mahadsantahay.